raxmatullaahi wabarakaatu dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed aad iyo aad baan idin salaameynaa meel kastoo aad joogtaan. Halka waxaan idinku soo gudbin doonaa productiga amba wax soo saarka shirkadda Forever Living Product qaybteeda caafimaadka gaar ahaan qaybta macaanka. Qaybtan macaanku sideen ogsoonahay macaanku dhibaato badan ayuu keenaa caafimaadka qofkii oo dawadii qaadanaya caadiga ahayd ayaa waxay imanaysaa inuu macaankiisu kaco kicitaanka badanna hadhow dhibaatooyin iyo cawaaqib xumo badan uu keeno qofka. Ay noqonayso inuu keliyuhu xanuunaan, neerfuhu xanuunaan iyo dareenku, indhuhu wax noqdaan, keliyaha dhibaato badan ka timaado, cawaaqib xumo uu qofka soo gaarsiiyo. Supplementary-ga amba productiga Forever waa kuwa ka caawinaya qofka inaanu macaankiisuna ka kicin, dhibaatada iyo cawaaqib xumadu macaanku keenayana ka hortagid wanaagsan sameynaya. Waxyaabaadka xusuusinta mudan muhiimka ah waxa weeyaan inaanu qofku joojinayn dawadiisii uu qaadanayay macaanka, maadaama uu macaanku yahay xanuun muddo dheer jira oo qofku si degdeg ah uu joojiyo. Haddaba wuxuu qaadanayaa isagoo kuwiisi qaadanaya ayuu productigana uu qaadanayaa ay horeynayaan 2 saacadood kuweenan productiga Forever ay ka horeynayaan dawada intuu qaadanayo 2 saacadood ka hor. Haddaba alaabta iyo productiga loo qaato macaanku waa 3 qaybood. Ta koowaad waa caagada huruudda ee aloe vera gel-ka, waa cuntada ka hor 6 mulqaacadood, iyo kiniinka la yiraahdo Garcinia Plus. Garcinia Plus-kaas oo isaguna qabanaya keenaya sonkorta badan ee dhiigga dhex wareegaysa inay noqoto mid la isticmaalo oo jirka ka baxda, deetana hoos u ridaya amba hoos u dhigaya macaanka uu qofku amba soo cadadka sonkorta ee dhiigga dhex wareegaysa, deetana hoos u ridaya macaanka. Isagana 2 xabadood ayuu qaadanaya qofku cuntada ka hor, oo cuntada ka hor markaa wuxuu qaadanaya caagada huruudda ah iyo kiniinka Garcinia Plus-ka ah 2 xabo. Cuntada kadib wuxuu qaadanayaa Arctic Sea. Arctic Sea-da 2 xabo ayuu liqayaa habeenkii iyo aroortii. Arctic Sea-daas waa omega 3, waxay u wanaagsan tahay indhaha, maskaxda, xididada iyo wadnaha, sidoo kalena beer subaga amba subaga dhiigga dhex wareegaya oo inta badan ay yeeshaan dadka macaanka qaba amba dadka dhiig karka leh, iyadana aad bay u anfacaysaa. 3daas oo wada socda waxa weeyaan waa qaybta kidka amba qaybta loo isticmaalo macaanka, kaasoo run ahaantii wax badan qofka caafimaadkiisa ka qayb qaadanaya, cawaaqib xumada iyo dhibaatooyinka uu keenayo macaankuna ka hortagaya. aad baan inii soo dhaweynaynaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.